Our first speaker will be Mohammed Haji in Greece, who wrote the book The Suicidal State in Somalia. I believe you're a scholar of African studies, and he will give us a brief introduction to his book. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Wadi bay brief na maal dhaweeto haddana dad cadaan ma joogaan oo Ingiriis kula hadla dad badan waxay dhahan Soomaali ku hadal marka buugayga ma ka hadli doono ujeedadana waxay tahay cilmigayga inaan gaarsiiyo iyo waxa aan hayo marka buuggi waa maal dhaweedan ka hadlay maanta waxaan ka hadli doonaa marka koowaad sida dhaqanka ii ahayd markaan meel toog ka bixinayo waxaan ku sharfaa qof Soomaali ku dhaxlaha ixtiraam ajnabi ha noqdo Soomaali ha noqdo meel dhaweed Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal ayaan ku sharfay oo ahaa the first modern Somali scholar ninka ugu horeeyay oo Soomaali ah oo noqda caalim casri ah reer galbeedka la haysta 52 ka baxay jaamacadda London School of Oriental African Studies ya jaamacad weyn maanta waxaan rabaa inaan sharfo Sheikh Aways Mohammed Al-Muhuddin Al-Barawi Sheikh weyn mashaayikhda qaadiriyada ninkii soo gaarsiiyay diinta islaamka inta ka qaaday marka qoryoolay dhulkan inta ka qaaday 18th century dhamaadkii qarnigii 19aad ee geeyay ilaa iyo Congo Mozambique yaa sharafu mudan yahay inaan ixtiraamno mudan yahay inaan u duceyno mudan yahay waa dadkan ku dayanayno waa dadkan jidkeeda hayno waxaan kaloo isna jecelahay inaan ku lifaaqo Soomaalidu ma jecla muslimka iyo in la isku lifaaqo umada kale Professor Andrew Wiski ya Professor Gush loo yaqiinay waa ninkii u horeeyay عدانا بوجي وجوه نوفل أو صومالي كقرن ترجمة في إنجليز كترجمة بوجاس عن كهل دونا مرك سيدتكو حوجة برتا بوجاس ولا رنجري أقون درة وأون عبد جايل وها قري فارح محمد جامع أول مركا في إنجليز مرك لو ترجموه النقدي ignorance is the enemy of love يا وها ترجمة بروفيسور أندرو ويسكي ونين يهودا ها بولا نقول شيء إنجليز وبي مرك دمبه وها معجزة أبوك إني دابعين Oxford University Press مطبعات واحدة بعد أدون كتكوبات كنتني لحسنة وأن قررنا هاي إلا أي مالنت ما أنت مجرو قف صومالي أو حكو دابعي Oxford University Press يا مركز هاسا يكون موجودين سا وقت يدا كم ده إن نهرموت كده حين قارة أفريقيا ضد كينونا يسنوجين يا لحدا إلا لحدا يسقال مركز دم بوجا صباحي دي وحنا كم دي هاي مانتا ضد بدنا صوماليين مو أجا بوجاك تلقوا دقة أفريقيا ليتريتشر كعالم أكسفورد هالنقطة كامبريدج هالنقطة جامعة نيويورك هالنقطة ميلا بدنا وكم ده يا بوجي فارح محمد جامع عول بوجاك تليتريتشر كالله سوقاتو كم دي هاي نكاس قيمها وين ومدى صوماليات كل حلها أو عريي واحد بدنا حكمة هاي علمي وحنا نصيب دراء إنه كم ده عدد كنا قد انتي دقالك السكية صو وليد أنا يراه إلهي وحنا سجن أوبرينا إنه نحرسته أدين كنا أود عيسان أنت مركان أنت كهو جدبو إن وحن حصل لها وكهل لها إن بوج كحرية هاي بوج وريو نوفلا يا أو أفريقيا لقى قرا وقت كنا ندحي بالفيريا اسكو فيريا يا سان 10 وقبرنا ودن بربرة كبحاي دبك يبربر كان هاي كنتن يتضبط يلا دابعي كنتن يسديد كنتن سجالك بوج وين إما أنت نوفلا عالم كجرة بوج أفريقيا بوج جين واجبة يا things fall apart مال والبقى literature أفريقيا لقول لك موضوع إنه هذا literature in foreign language موضوع literature ولا قراءة مسوجانة وجامعة لقول لك بوق كباد أو متعلمين تعمل بروسرات يقدران أرضية إنه سوء أغريان وبوق جيني واجبه وقت كنا نحيي فيريا يا فارح محمد جامع عول بوقيس وحكير لبيه 8 سنة يا إن المركب هرمود هين لكن مال إلا عن كسر عني لكن وكري كرنا إن ما أنت كبحنا بربرك إيا قرن جبك أو نص نقلنا الدولة نمو ونكسن أو نص نقلنا ضد رول موديل كان نقطة قارة أفريقيا مركا إن تاس عن كسر كوبي لها هدان سكوبن يا مركا لبوجي كوعليو أو شرحه بوجي وحكي كسب سنة هاي state collapse قرن بربري قرن باباي يا أو بيلا هاي محو باباي قرن المدينة محو بربرتي صوماليا محو باباي سوي وبابا محي هاي محاكين إني بربر كدير مدة دير كده صار لسعتان 1990s كي يعني سجاشميدي وده ما بدن أفريقيا بربرين صومالي كلمة بربرين قرن كيدو ما بربرين
waxaa burburay Liberia, waxaa burburay Cote d'Ivoire, waxaa burburay Chad, waxaa burburay Sierra Leone. Ethiopia laftirkeeda African Studies dooda ka taagan 1991 state collapse yaa dhacay muddo yar oo gaaban laakiin si degdeg ah uga baxeen maxaa annaga na reebay oo naga reebay Afrikaanteedii kale maxaa keenay oo mucjiso ka dhigay oo waxa la yaaban yahay ay tahay in muddada inta dheer qarankeeni oo unified oo mid ah loo laayahay sidoo 90ka ku burburay ilaa maanta loo keenay laayahay marka buugu waxa soo sharaxaya wuxuu ka bixinayaa daraasad dheer iyo si gun dheer aan u baaray approach cusub iyo lenses cusubna aan ku eegay kadibna waxaan isku dayayaa chapterka dambe inaan u helo fikrado cusub iyo aaraa cusub oo qaran burburkaas laga baxo saad ogtihiin qaran hadduu burburo dib looguma dhisi karo isla qaabku ku burburay waa in la bedelaa framework waa in formulada la bedelaa waa in formatka la bedelaa haddii aan ku wadno jidka uu ku burburay ma gaarayno wax guul ah waxaan la mid noqonaynaa fuustaalkaas taalla oo dhinaca hoose ka go'an tahay qof biyo ku dhaaminaya maanta oo maanta oo dhan biyo ku wada mana buuxsamayso waxaan isku dayaynaa inaan buuxino taasna waxay la mid noqonaysaa wixii filosofarka Jarmalka uu ku tilmaamay Albert Einstein wuxuu macneynayay waxa ay tahay waali waa muxuu macneeyay wuxuu ku tilmaamay in tahay waalida qof isku dayaya inuu maanta oo dhan wax ku celceliyo doonaya inuu expectation wax kale inay kaga soo baxaan laakiin iska soo baxayn wixii inuu ku celceliyo wax ka soo baxay male isla meesha la taagay meesha laga dhaqaaqay meesha la tagay waxaan isweydiinaynaa wadankii hadda wuxuu ku jira xaalad war construction wuxuu ka baxay yani colaadii wuxuu u sinqanayaa inuu horumar galo okay sorry inaan u dhaweeyo microphone marka wadanku wuxuu ka baxayaa xaalad burbur ah wuxuu u baxayaa xaalad post war period xaalad laga gudbaayo colaadii oo loo gudbaayo wanaag iyo horumar waxaa marka isweydiin mudan sida qofka mutacallimka u arkayo horumarkaas iyo qofka dariiqa maraya sida uu arkayo waa kala labo isku indho kuma eegayaan waxaan u kala saarayaa anigu buugayga waxa dhacaya Soomaaliya maanta ka dhacaya markaan macneeyo inay yihiin laba waxyaabood state and society qaran iyo bulshadii ayaa wax qabsanaysa waxay qabsanaysa waxa kamid ah mobile system waxa kamid ah telecommunication waxa kamid ah xawaala system waxa kamid ah telefishinada kamid ah waxa kamid ah book fairida waa horumar bulshada Soomaaliyeed u sinqatay horumarkaas marka hadaan yani lala waafajin qaranki oo aanan ka fikirin qarannimadeeni saan ku soo cishan lahayn saan mid ku noqon lahayn si Soomaaliyeed la isugu soo wada celin lahaa okay bugu asdhageysana marka aan isdhageysano raalli ahaada waxay raalli ahaada waa koobaynaaba bugu marka wuxuu ka kooban yahay 382 bug 400 oo page ku dhawaad waana buugga kaliya akademiga ama cilmi ah ee buug feerka yaala hadda wuxuu ku xiriirsan yahay daraasaadka cilmi baarista khilaafaadka Afrika ka socota ee lagu soo darsay wadamada Liberia lagu darsay wadamadaas aan tilmaamay burburo dhan ku dar Rwanda Burundi maxay u burbureen seena uga baxeen burburka maxaa casharra oo ka baran karnaa wadamadaas dooda u weyn ee taagan marka waxay tahay waatay saan ognahay Afrika xor noqotay 60 waataan wadamadii xorooba kamid ahayn aan isdhageysano marka raalli ahaada aan isdhageysano waqti yaraan joognaa aan kala faa'iideysano adinkana su'aalana weydiin annagana aan jawaabno waatay Afrika xorowday 1960 konton wadano Afrika waatay ka hoos baxeen gumaysiga waxa qof walba oo noolaa xilligaas oo Afrikaana uu ku fikrayay Soomaali ku dar cid walba dheh marka gumaysigu naga tago xusulladan ka leefi doonaa malabka waxa socotay Euphoria waxa socotay waxa la yiraahdo yani xumbo rajaa oo la rajaynayo inaan barwaaqo u saqan doono waxa laga doodayaa mutacallimka Afrika ka doodaya maxaa reebay marka Afrika
iska dhaaf inay meel kale aadee maxaa Asia iyo Latin America ka reebay waxaa marka lagu doodayaa oo dooda weyn u taagan ay tahay midig iyo bidix laba doodood oo taagan midigta waxaa hogaaminaya Professor Maxamuud Mamdani mutacallim weyn qaaradda Afrika mutacallimiinteeda ka mid ah adinkuna dee aan idinku baraarujinayo inaad wixiisa akhrisaan si aad waxaan u fahantaan doodiisu tahay gumaysiga reebay Afrika asaga shabaq uga tagay iyo tan kale uu wado Ajil Mbebe mutacallim weyn oo asaguna Afrika ka tirsan uu ku doodayo maya Afrika ayadaa isreebtay ayadaa gacmaha isgoysay ayadaa iscuntay buugayga jabtarka koobaad labadaas doodood ayuu dhexdhexaadinayaa wuxuuna ka dhex sameeyay dood cusub oo labadooda dhex taalo ah yes gumaysigu waa nooga tagay shabaq taraab yes maanan ahayn dad dowladnimo u qaabaysan Afrika laakiin aaway mas'uuliyaddii ay lahaayeen hogaamiyaashiina hogaamiyay kuwa horkacay aawa mas'uuliyadoodii marka labadaas buugu jid cusub meesha ka furi doona deewaana arki doontaan hadii la yidhi